marka adduunka dusheediina waxay ahaayeen addoommo ilaahay laakiin maalinteeba waa u taraysa addoonnimadaasi dad badan maanta waxay arkayaan salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo zakada iyo taacadda ilaahay qofku uu gudanayo manfacadeeda adduunkan qofku ku arki maayo in badan laakiin maalinta la qatan yahay la qaawan yahay waa yowma alqiyaama maalinta khalqigoo dhan ilaahay ay u sara joogsan doonaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yanduru almar'u ma qadamat yadaah yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma dalika yowmu taqaabun yowma aljamci laa rayba fiihi ilaahay qur-aanka meelo badan buu kaga warramay maalinkaasi dhibaatada uu leeyahay cadcaadda halkaa inaga gubaysaa bini aadamka madaxooga la duldhigi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasaa qofka dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 diraac dib haddana usoo bixi doona buu nebigu yidhi markaasaa qof walba halkii dembigiisu ahaa buu imanayaa dhididkiisu qaar buu kuraamaha imanayaa qaar buu jilbaha imanayaa qaar buu guntiqabadka imanayaa qaar buu garbaha imanayaa qaar buu halka qowlaladu dhididkoogu imanayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ee qofku cid u gurmata uu u baahan yahay ma aha 2 cisho iyo 3 maalmood oo maalmahan adduunka hamoodin wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana maalinkaasi laa hooyaa wax kuu tari walaa aabbaa wax kuu tari walaa dhaqaalo qofku lahaabaa wax u taraya walaa qabiil baa wax u taraya walaa aqoontii uu lahaabaa wax u taraysa may waa maalinta ilaahay tabaaraka wa tacaala la wada hoos joogee la baryaayo ee xataa jamiica alambiya calayhim assalaam nebi walba intuu jilibka u dhaco uu odhan doono yaa rabbi laa as'aluka ilaa nafsii maanta naftayda mooyaane anu cid kale u hadli maayo ilaahu aniga i badbaadi buu nebi walba uu leeyahay aadam baa le calayhi salaam yaa rabbi nafsi naftayda ilaahu maanta ii badbaadi ibraahim alkhaliil calayhi salaam baa odhan doona khullada ilaahu khaliilka aan adiga dhigatay ayaan ergo ka dhiganayaa ilaahu maanta khaliilnimadaada igu badbaadi buu leeyahay maalinkaasa ilaahay xaggiisa waxaa ka iman doona ogeysiis iyo iclaan oo waa maxay iclaankaas yaa cibaadii laa khawfun calaykum alyowma walaa antum taxzanuun aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waakwaabin wafiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu lacyunu waantum fiiha khaaliduun watilka aljannatu alatii uurithumuuha bima kuntum tacmaluun yaa cibaadii ilaahay baa odhan doona addoommahaygiyow ininka maanta dushiina murug iyo cabsi midna dushiina ma saarna baa la odhan doonaa kuwa sidaa lagu odhanayana waa kuwii adduunka intay joogeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka maxaa loo jeedaa markaas aayaadka ilaahay waxa weeyaan waa jannada waa naarta waa bacthiga waa qabriga waa nolosha dambe ee dhabta waa malaa'igta waa xayaat albarzakh aayaadka ilaahay aayaadkan kowniga adduunka aan arkaynana ilaahay baa maamula cid kale ma maamusho habeenka ilaahay baa keenay ilaahay uu karaa adduunka dhanba inuu hal habeen ka dhigo ayaa keeni kara maalin hadduu ilaahay adduunka habeen ka dhigo haddii uu maalin ka dhigana ayaa habeenkan aad ku nasanaysa kuu keeni kara wa min raxmatihi jacala lakum alleyla waannahaara litaskunuu fiihi walitabtaquu min fadlihi walacalakum tashkuruun baa ilaahay wa min raxmatihi waa naxariista rabbigiin weeyaan ayay ka ahaatay inay maalintuna inii timaado iftiin la timaado oo maalinka cadcaadu intay soo baxdo aada arsaaqada xalaasha aada u fooftaan habeenkiina uu la yimaado mugdi deedna habeenkiina aada seexataan ood nasataan baa ilaahay yidhi walacalakum tashkuruun aayaadkaa markaad aragtaanna wuxuu ilaahay leeyahay waxaad markaa mudan tihiin inaad rabbigiina ugu mahadnaqdaan war bini aadan yaroo daciif oo miskiina adigoo guriga ijaarkii lagugu leeyaho kaa cas tahay oo meelaad wax ka soo qaadana la ninka maalin yar maaragtaanay culayskaa ku haystay kaa fudaydiyey ee kirada kaa sii dhiibay ayaad weligaa hadal haynood leedahay ninkaasi waa nin deeqsiya waa nin dadnimo yaqaana waa nin naxariis badan waa nin diin fiican baad odhan famaa baaluka ilaahay ku abuuray maxaad u malaynaysaa caafimaadkaad saaka la soo kacdayna kugu deeqay araggaad ku arkaysa ku siiyey hurdadaad xalay seexata ilaaha kugu deeqay bal meel hurdada lagu iibiyey adduunka sheega waa kaasi gaaladan maanta ina wareerisay caddaan iyo madowgooga eele wax walba waan hallay wax walba waan samaynay hurdo may samayn karaan caafimaad may ku siin karaan kuma siin karaan hal habeen qofku hadduu seexan waayo u walan hal habeen
ما أنتم ربك شاكين علي مسيحا علي مسيحا رواد سيحان دون تاي بالعامس ملاها بوم بالعبت قحوة بدن بالعبت بالأفضل هذا أنا مال النمدي بهذا الهرددي أدوس كوايو وعلى لا يبهابين كدم بهدوس يحن ويقف كان مسكح دي سوالس بيكوجرتا مسكح دي سوالس بيكوجرتا وقف كاس هرددنا ومن نعم الله عز وجل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور نبينا صلى الله عليه وسلم مركو جيفك كسوكعه دعاء داسو آخر سنجري الحمد لله الذي أحياني إله وحان كم هذا أنيق يسون وليي انتو إدلي كذب وهي دمشدا يجيردو علاقة كذا حيسوا ولا لبوا النبي يقولي أهل الجنة جنة هذا قالنا مسيحا دونان أحيانا بعدما أماتنا حلوان هروني وادن سني وحدوش هذا كذا عيا كما ورقبين يمسمى الله ما يكون ضلاشي هل كان أكون ضلاشي هل كان أكون ضلاشي هل كان أكون ضلاشي هل كان أكون ضلاشي إياكو إلى لني حفظ ملائكة بلغو صدر يا حشرات كنا كايل على صاحبينك marka aayaadkay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay وكانوا مسلمين dad adduunka dusheeda intii la joogana anaga noo hoggaansan bay hayeen buu ilaahay yiri 60 sano 70 sano qofku hadduu ilaahay daacadiisa u sabro waxa uu helayaa raaxa abadiya buu helayaa raaxa abadiya sarmadiya 70 sano 60 sano 70 sano aakhira marka la joogo intay tahay ma taqaanaa وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ابن عباس رضي الله عنه مفسر في القرآن كوحيري مومك كتاب كيسا قعنت مدق مركو كقاتو واك إلى هيري حساب يرو فضب لحساب دونا دان إهل كيسا حقي سوء قدومي بولا هيري إهل كاكو كوان أدونك كل جوغا حمود الرنتي ما كوان إهل كرنتها أولادنا أدونك أدكو حيستوى اختبار بالغوسيي حاسكاكو والغو اختبار يا nolosha adduunku waa lagu ikhtibaaraya ehelkaaga dhabtu baa lagu qofka muuminka ehelkiisu kitaabkiisa markuu gacanta midig ka qaato oo xagga jannada ugu dhaqaaqo irida jannada u taagan yihiin buu ibn Abbas markaasuu sidaa u eegaya xawraadiisii xawraantiiba ka hortimid ma ogtahay daymashada oo kaliya ayaa ka qaadan doonta 70 sanadood kuwa adduunka 10 daqiiqo ma ay kartaa islaantaada haddaad tiraahdo nabad qurux badan tahay caawa ku daawada balse u joogso warhay cawri bay ku oran balaaga ku dhacday 70 sano noloshii adduunka Soomaha waxaad ku soo dhameysatay Soomaha 70 sanaad adduunyada joogtay waxay u dhigantaa hal xur al-ayn oo wajigayga daawanaysa u dhigantaa yu'aaniquhu wa yu'aaniquha wal mu'aanaqatu qadru 40 sana buu ibn Abbas 70 sano uu daawanayay 40 sanana saas uu haysan baa la yiri waa imisa 110 sano maxaad soo jirtay adduunka markaa ehelkeenu way naga dambeeyaan aakhiraduna waa meesha qofka muuminka lagu raali gelinayo jannadu waa meesha adiga lagu raali gelinayo wa fiiha ma tashtahihi al-anfus ba ilaahay waxa naftiinu ay doonto oo dhan ba ilaahay ayuu ku sheegay jannada inay yaalaan marka asbaabta jannada lagu galayo kuwa waxa ka amaaragtaanay bacda raxmatillahi jalla wa ala wa iimaanka oo markay muuminiintu banka qiyaama ay soo gudbaan ay soo dhaafaan ee kitaabkooda qaar gacanta midig laga siiyo qaarna jannada bila xisaab ay ku galaan ayaa ilaahay oran doona jannadu waa taas raxmadeeda ku gala laakiin darajaadka jannadu ay leedahay hadda acmaashina ku qaybtima la oran doona markaas qofka loo baarayaa salaadiisa intay ahayd sadaqadu la baxay intay ahayd quraanka intee buu ka xafidsanaa adkaarta intee buu sameyn jiray yuqaalu li saaxib alqur'aani iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صاحب القرآن حافظ القرآن لك قرآن كحفظه مجود كها القرآن كاللابتي سيلاهي وكو إلهي قلبي سيلاهي كطابعي أيها لقول عندنا القرآن كآخر سكيس البلاب آياتنا أكلا دقدق ترتيلي سيدي أدوية مركات دوت القرآن كأدوكلا دقدق يسي آيات أقدا بيسمى شيء أتكو جوجسد آيات جنة منزلة دادو نقول دون تأيي آيات أقدا بيسمى هالكات كو جوجسد بعد جنة كقلي دون خلاص لذلك حافظ القرآن كذا ليري بينه وبين النبيين درجة واحدة درجة النبوة حافظ القرآن المها قرآن كحفظ سنة قرآن كحنبار سنة السجا النبي قد درجات كل يوم بعود حيسا ودرجة ده درجة النبوة بعود حيسا النبي لماذا بعود حيسا مركا جنة المركا يداتكو أي نحريست إلهي كو قلان الله ينقو قلي آمين هذا
kadibna waxaa la odhan doonaa markaas acmaashiina jannada ku qaybtama. marka asbaabta jannada lagu galayo, acmaasha jannada lagu galayo salaada subax baa ka mid ah. masalla albardayni dakhala aljanna buu nebigu yuri sal alla alay slam. qofka labada qaqabuu tukada jannadu galay. salaaduna waa meesha qofka muuminku ilaahay uu kaga xidhmo weeyaan. muslim baanahay ma tukado waxay ka dhigan tahay muslim waanahay waan sheegtaa laakiin ilaahay xidhiidh lama lihi bay ka dhigan tahay. ra'su lamri alislaam wa camuuduhu alsalaa. diintan islaamka madaxeedu buu nebigu yidhi waxa weeyaan waa islaamnimada. islaamnimadu waa maxay? waa hogaansa, inaad ilaahay u hogaansanaato. masaajidka dhexdiisa keliya maaha, meeshaad doontaba joog. waxaa la doonayaa ilaahay inaad meel kastood joogto aad amarka ilaahay aad ugu hogaansanaatid. wa camuuduhu maa nebigu yidhi alsalaa. diinta islaamka udubkeega haye ee xajinayana waa salaada buu nebigu yidhi. salaadu markaa waxa weeyaan zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka jadiidka markuu soo islaamo salaadana waa la baraayey, sida ilaahay loo baryana waa la baraayey. salaada waa la baraayeyo sida ilaahay ugu xidhan weeyaan. baryada ilaahayna waa la baryayeyo makhluuq sidaadaa ha baryo ha weydiisanin waxbe, ilaahay bari. haddaad ilaahay bareed baahidaada ilaahay ba adiga kuu daboolaye. marka muslim baan ahay mana tukado isma galayso. salaada takale salaada janna lagu helayaa. salaada waxaa lagu helaa caafimaad baa lagu helaa. salaada waxaa lagu helaa baraka lagu helaa. salaada waxaa lagu helaa dembi dhaaf baa lagu helaa. oo nin asxaabta ka mid ah maskiidka nebiga intuu iska taagay buu nebiga u sheegu yidhi anigu dembi baan galay xadka hallay mariyo. markaa buu nebigu ka jeestay calayhi salaatu wasalaam oo xaggaa buu nebigu eegay. haddana xaggaa kalu ka kaco wuxuu yidhi dembi baan galee hallaga gooyo dembiga. markaa buu nebigu sal alla alay slam ku yidhi uu ka jeestay. haddana salaadii subax markuu tukaday ayuu haddana ninkii saysan kari waayo uu sala kacay. yaa rasuulallah dembi baan galay halayga gooyo. salaada ma nala soo tukatay buu ka yidhi. haa waa nala tukaday buu yidhi. marba salaada haddaad nala soo xaadirtay dembigaaga waa la dhaafay iska teg buu ka yidhi. salaada waa dembi dhaaf laakiin waa dunuubta yaryar maaha dunuubta waaweyn. kabaa'irku toobabada u baahan yihiin waa saqaa'irka yaryar. salaada qofka ilaahay kaga dhaafa. sidii ninkii inanta yar waqti dahiira xili dhulku uu kululaabay ina yari ka soo horbaxdayo iska dhudhunkaday. markaasuu xaafadda markuu tegay buu yidhi dembi baan ku dhacay, dembi baan ku dhacay. haddaba waa uu dhunkaday un xaggana uu ka dhunkaday, xaggana uu ka dhunkaday. waa xili duhuro dadka magaalada makana madiinana dadku ay kala hurdaan, walaakiin ninkaasi uu fadhiisan waayey. ayaku dunuubtay ka baqayeen. inaga zamankeenana waxaad arkaysaa muslim kabaa'irkii dunuubtii kabaa'irkii bartamaha ugu jira inuu dembi sameeyen aan isku haysanba. kabaa'ir zinadii iyo khamrigii iyo khiibadii xantii iyo dhex fadhiya maca daalika haddana weli inuu dembi gala iskuma haysto. saxaabada rasuulka way gubanayeen markay dembi yar uu ka dhaco. maxay la gubanayaan? laanna dembigan cuqubada ka dhalan isagay ku garanayaan. deedna markaabuu nebigu u yimid sal alla alay wasalam. markaabuu nebigu u fadhiiso. ila aayaadkan qur-aanku mar keliya ma soo wada degin. kolba in baa la soo dejinayay. kolba inta iimaanka ummadda uu ziyaado ayaa shareecaduna noloshooda ku soo biiraysay. laanna taacadda ilaahay iyo shareecadda waxa lagu qaadi karaa waa iimaane, maaha quwadda caqliga iyo quwadda jirka maaha. qofku shareecadda inuu ku dhaqmo wuxuu u baahan yahay yaqiin iyo iimaan buu u baahan yahay inuu gudaha ka dhisnaado. lidaalika nebigu saxaabadiisa gudaha ayuu ka dhisayey. hadda inta iimaankooda iyo macrifada rabbigooda ay la leeyihiin ay biirto ayaa shareecadda iyo axkaamtana noloshooda kusoo degaysay. ila gaadi walba tankiisa la saaraaye. markaa buu nebigu yihi joog, shareecaddii weli ma hayay buu yihi amarkaas. markaasaan qur-aankaas soo degay markiiba. wa aqim isalaata طarafay الnahaar wa zulafan min alleyl ina alxasanaat yudhibna asayi'aat dalika dikra lildaakiriin. ilaahay baa yidhi caza wajalla salaada oog. shanta salaadood baa markaa lagu dhiirigeliyey oo yidhi shantaas salaadood haddaad jamaca aad ku ilaaliso aad tukato gafafkii yaraaya kaa dhacay salaadaa ilaahay kaaga bi'inayaa. weyse qaadashada aad usoo weyse qaadanaysaa lagugu dembi dhaafayaa. fadhiga miskiidkaad ku nagaataa lagugu dembi dhaafayaa. salaada jamaca aad la soo xadirtaa lagugu dembi dhaafayaa. gafafka yaryar oo dhan hee khayrka dabadii aad samayso ayaa tirtiraya oo bi'inaya. dalika dikra lildaakiriin. aayaddii markii ninkii loo sheeguu maqlay ayuu nebiga u yimid uu ku yidhi alay haadaa yaa rasuula allah, aayaddani ma aniga keligeeday khusaysaa? may buu nebigu ku yidhi bal ummadoodoo dhan way soo degtay buu rasuulku yidhi.
marka dunuubta yar yar weeyaan waxa salaada lagaaga dhaafayo ama dunuubta waaweyn iyadu waxay u baahan tahay tooba u baahan tahay tawba dunuubta waaweyn shirkiga iyo kabaa'irka zinada iyo qatlu nafsi iyo sixirka iyo xuquuqul waalidayn iyo caqiibada iyo ya salaada oo laga tagay iyo ma fahamta iyo waalidkoo la aflagaadeeye iyo taasi waliba soomaalidu kabaa'ir ba uma taqaanaba dembigaas min alkabaa'ir buu nabigu yihi shatmu rajuli waalidayhi dunuubta waaweyne kabaa'irka waxaa ka mida buu nabigu yihi ninkoo labadiisa waalid aflagaadeeya saxaabigii way yaabay yaa rasuul allah sidee labada waalid loo cahay wahal yashtamu rajulu waalidayhi oo ninku labadiisa waalid ma caayi karaa siduu u caayay buu nabigu sheego wuxuu yidhi kan kaluu aabbihi hooyadii aflagaadayn waa xumo ku sheegi kanna kan kaluu aabbihi hooyadii aflagaadayn sidaasuu qofku ku galayaa kabaa'ir buu rasuulku yidhi taasi dadkeenna maanta waxbaba lama aba xataa waxaad araysaa dad waaweyn aabbaha waxa ku samee kule hooyadaa waxa ku samee laa xawla walaa quwata ila billah kabaa'ir tooba ayay u baahan in la toobad keeno ama dunuubta yaryar salaadaha qur'aanka masaajidka fadhigiisa wayse qaadashada istikfaarteed la timaada ilaahay kaaga dhaafaya laanna dunuubteennu mar walba dunuubteennu way naga soo dhacaysaa laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala sifo wuxuu leeyahay in la yidhaahdo waa ghafuuru raxiim weeyaan dhaafid badana naxariis badan weeyaan ha ka quusan marka asbaabta dunuubta ilaahay jala wacala uu nagaga meedhay gafafka yaryar waxaa ka mid a salaada ayaa ka mid ah salaada waa camalka ugu horeeya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ee maalinka aakhira yowma alqiyaamaha qofka loo xisaabi doono hadday salaadiisu ay hagaagta buu nabigu yidhi camalkii kaleo dhanna waa u hagaagay hadday salaadu ka fasaado ka xumaada buu nabigu yidhi qofkaasi uu hoogay u khasaaray buu rasuulku yidhi salaadu waa camalka ugu horeeya banka qiyaama marka camalkaaga la furaayo la xisaabayo weeyaan hadday hagaagtana camal kastana uu hagaagi soonkii baa hagaagi sadaqadii baa hagaagi xajkii baa hagaagi cimradii baa hagaagi camal kastoo khayrood samaysay salaada ayuu ku xigaa ka dambeeya oo salaada ayaa u maaragtaan madaxii hadduu madaxu hagaagan nujuhna way hagaagayaan laakiin salaadu hadday xumaato wax walba way kaa xumaadeen ogow marka salaadeena ha ku dadaalno waxaa kaloo salaadu ay qiimo ku leedahay mataqaanaa caafimaad baa salaada laga helaa dadka maanta dadka ugu caafimaad badan baa la yidhi waa dadka shantaa salaadood ilaaliya ku dadaala hadday karayaanna salaataleylka welibana ku dara dadkii saalixiinta wanaagsanaana salaataleylka iyaku waxay u ahayd curfiga lagu yaqaano aha salaataleylku habeenkina horey u seexanayeen horeyna way u kacayeen saacadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa dembi dhaaf doonaya dembigiisa han dhaafe saacadaha intay kacaan ba ilaahay baahidooda u sheeganayeen salaadu hadday qofku u hagaagto adduunyadiisa hagaagi oo aakhiradiisana hagaagi welibana oo zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam xataa madaxtinimada marka qof madax laga dhigayo salaadaa laga eegi jiray cumar bin khadaab nin bilaa cibaadaha oo ilaahay cilaaqa aan la lahayn shaqo diineed uma dhiiban jirin bal nabi maxamed dabadii talada ummadda ninkii qabtay abubakr sidiiq buu ahaa radia allahu canhu abubakar talada ummadda ayaa qabtay nabiga dabadii abubakar halkuu ka soo galay abubakar baa lihi nabiga qaraabo dhow may hayne cali baa nabiga u dhowaa abaa sufyaan iyo wiilkiisa mucaawiya nabigu cali bay u yimaadeen cali oo meel fadhiya markii abubakarna la mubaayacoonayay markaas bay ku yidhahdeen war taladan adiga cidkaaga xaqle ma jirte qabo ciidanna annaka na weydii abaa sufyaan iyo markaa wiilkiisa mucaawiya diinta islaamka way ku cusub yihiin oo 2 ama 3 sano muddo yar bay islaam yihiin markaas weli ma gashano diintu cali baa sidaa u eego ku yidhi adiga inankaagu intaad isku daydeen nuurka ilaahay inaad demisaan een inaga difaacnay ma yarayn buu ka yidhi u yaabay abaa sufyaan iyo mucaawiye iyo markaa iyo cali way isku dhow yihiin abubakarna waa jilib ka sii yar fog
iyagu xag qabiil bay eegayaan oo waxay leeyihiin madaxtinimada nin adiga kaaga xaq lama jiro caliyow qabo dadkuna way ku yeelayaane linabiga sal alla alay salam laba walaalaa ini kala dhashay inantii nebi maxamed uu dhalayna waad u dhaxdo faadimo ninkeedii baa tahay xasan iyo xuseyn nebigu dadka ugu jeclaana waa dhashaadii waa ubadkaagii weeyaan marka cid nebi maxamed adiga kaaga dhow ma jirto meesha ma fadhido arrinkana cid adiga kaaga xaq lama jiro talada qabay ku yidhahdeen haddaad ciidan u baahan tahayna annakaa ciidan magaalada maka ku qabanayna madiine ku qabanayne hadal wuxuu kula hadlay ayna ka soo kici karin wuxuu ihi intaad adiga inankaagu aada nuurka ilaahay inaad demisaan aada isku daydeen ee aan niga difaacnayba ma yarin buu ku yidhi fadhiisa buu abaa sufyaanow maaha boqortooye buu hi arrinka boqortooye maaha kaad adu ka hadlayso waa boqortooyada weeyaan waa la kala dhaxlaa tani waa khilaafa calaa minhaaji nubuwa mid baa kuu sheegaya dhegeyso nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaa lagu yidhi nebi allow salaadii baa taagan markaa buu nebigu yihi abubakar ummadda salaada ha ka bixiyo caaisha radia allahu canha ayaa tidhi yaa rasuula allah abubakar sidiiq waa nin qalbi jilicsano maqaamkaaga hadduu istaago maaragtaane oohintiisa ayaa ka qaalib noqonaysa qur'aan akhriskiisa oo la fahmi maayaba qur-aankiisa markaa buu nebigu yihi caaisha aamus buu yidhi adigu abubakar salaada ha inaga bixiya buu rasuulku yidhi abubakar nin xishood badan buu ahaa oo naftiisa dhowra oo mukhlis oo ikhlaaskiisa iyo iimaankiisa ilaashanaya buu ahaa ismu qadimine uu joogaa waxaa lii cumar binu khadaab baa damcay inuu isqadimo markaa buu nebigu qoorta la soo galay masaajidka ila guriga nebigu uu jiifo iyo masjidku isku muuqdaan ma og tahay markuu arkay nebigu cumar oo safkii istaago istawuu leh ayuu nebigu yihi waya'ba allahu waalmuuminuuna ilaa abaa bakar ilaahay iyo muuminiintu way diideen abubakar oo halkaa jooga nin kale salaada ummadda inuu ka bixiyaa ilaahayna ogolaan maayo muuminiintuna ogolaan maayaan buu rasuulku yidhi sidaasuu markaa abubakar uu salaadii ku galo ummadda kaga bixiyey dhegeysa buu yidhi abaa sufyaanow salaadu waa camalka aakhiradeeda badbaadinaysa buu yidhi een aakhiro ku badbaadayno ninka aakhiradaydii hoggaan la nooga dhiga camalkaa ku badbaadi lahayn adduunyadana isagoon baana hogaamin karay buu yihi cali bin abi aalib salaadii uu abubakar u tujiyey ummadda nebiga oo nool ayaa laga cabiray nebi maxamed gadaashiisa khilaafada islaamka nin abibakar uga xaqle haba yaraateen ma jiro walaalayaal marka salaadu zamankii nabigeena sal alla alay wasalam haddana abibakar ninka ku xigay xagga salaada salaadu fiicnida cumar binu khadaab buu ahaa taladii ummadda cumar baa qabtay haddana cumar gadaashiisa ninka salaad wanaag ninka salaada wanaag ugu salaad wanaagsanaa ummadda cuhmaan buu ahaa cusmaanna maaragtaane abibakar cumar buu ku xigay uma caliy buu ahaa haddana calina wuxuu ku siigay cusmaan waa markay ummaddu ay wanaagsanayd ninba ninka uu ka salaad fiican yahay ayaa talada ummadda loo dhiibanayay innaka zamankeenana wadaadadu masaajidda ha fadhiyaan siyaasad shaqo kuma labaa lagu odhan wadaadka waxaa loo ogol yahay keliya inuu maskiid ka tujiyo dadka islaantana uu kuu meheriyo qofka bukana uu qur-aanka kuu saaro ka dhintayna uu kuu quraamo uu qur-aanka ugu akriyo qur-aanka soo akriya macalin nolosha intii kalena waa laynoo kala saaray faslu dawla can iddiin niman baa intay daraaseeyeen bay idhahdeen sideed muslimiinta islaamnimada uga dhex saartaan waxaa la yidhi diinta iyo adduunyada u kala saara markaabaa dadkii laga dhaadhiciyo loo fahamsiiyey welibana caamadii diintu masaajidka uun ha taallayayna ka bixinba basaskan dhaadheere dadku ay fulaan buu wadaad wacdi ka jeediyey mid baa yidhi warda meesha miskiin maaha buu ka yidhi mid kale meel maqaayadoo la fadhiyo buu wacdi isla taagay sheekh masaajidka nagu sugay meesha miskiin maahayna waa hotel weeyaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa maskiidkana uu ku dhex wacdinayey aswaaqdana uu ku dhex wacdinayey xabaalaha dushoodana nebigu saxaabada uu ku wacdiyey masaajidka dhexdiisana nebigu uu kula hadlay ummadiisa oo diintuu ku baray oo diintuu ku tarbiyadeeyey oo qur-aankuu ku baray oo sunnaduu ku baray suuqa dhexdeedana nebigu saxaabadiisa uu ku baray diinta isagoo suuqa nebigu calayhi salatu wasalaam nin saxaaba isgarab fadhiyaan ayuu nin soo agmaray
كان محاول الله هيد بكوري ومن عظماء قريش ورجع قريش هو وين بكوري وشرف بدن هدوه هذا القصة والله جوكسن هدوه قبل عند كدولي جوري هذا والله جورين هدوه عيد يرجع سوى الله أقبل مرقاب النبي موسى عليه الصلاة والسلام هذا ننك لا يا سوء أجمري كان محاول بكوري كان وافق هذا المسلمين تويانو هدوه هذا القصة عندنا بيجيسني ميسو هدوه قبل عند كدولا قبل عند سيني ميسو هديه يرى ما تاني وريبل أنا أشفعت قالوا إرجدي إذا أقبل هدود هذا إرجدي سعدنا أقبل ميسو مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري فوالله بان كبارته كاهورا ذرك يسينا هالكامري وأدوك اللي قبل حيي كاكل يمونك ضعيفة إلهي تزكى خيمة بضم وكخير بضم ورسولك يريد والسوق النبي يقول صحابتي سكت المام يقولها فكرة ده سوى غلط فكرة ده صح ده وحويان مسلم كان ضعيف كان تاك تيرله لأن إلهي بعلاقة لليهي صلاة بوتو كذا إيماني أعمال بقلبك سكبوه ده كاسا أرلدا كي هرو أرلدا لقد بوحيي مؤمن كاسا كقيمة بضم النبي يقول marka diintu walaalayaal wala inoo kala saareen maanta diinteenu noloshoo dhan bay galaysaa noloshoo dhan cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka dadka ugu salaada wanaagsan leh ka ugu quraan akhriska fiican leh ka ugu quraan ka xaafidkeen ninba ninka ka quraan xifdisan yahay ayaa zamankii nabiga talada ummadda loo dhiibayey ninba ninku ka naxariis badan yahay ayaa talada ummadda loo dhiibayey cumar alfaaruuq radia allaahu canhu ayaa ninba u yimiday ويري ماد أنا إذا بكتة والد دولة الإسلام توا تبلارته ماد أنا جنا مقالين تودي دين تأمير إذا بكتة عمر داير واضو قلنتا رجل دين تأسود قالي باته وهذا جبريت ولا إيه قال يقول ورقد ما كوك ورا يعطوش شغلة جيسي نوت كيبو مركا وديارية نوت قبل دم بالله قد جوالي نكي وحوي عمر بن الخطاب عيالك يسووا ودلي يكون بشيسو أي دلين ay la ciyaarayaanoo mar dhunkanayo oo mar caynkaano oo markaabuu ninka sidaa u eeg yaa amiir almuuminiin caruurta yaryarna ma la dhunkadaa markaabuu cumar ku yidhi haa wallaahi anu intaasoo u badaan dhalo weli midna ma dhunkan buu yidhi markaabuu cumar ku yidhi warqaddii aan kuu qoray bal soo celi uu ka qaaday uu jaxjaaxay oraba xaafadaada fadhiisa buu ku yidhi naxariista reerkaagiiyo dhashay baad u naxariisan weyde see ummad ugu naxariisan buu ku yidhi adigu seed ummad ugu naxariisan orad naxariista gurigaaga ka soo bilow naxariis madaxa ninka ummad tala u qabanaya salaadaa laga eegayey qur-aanka imsaaka hisaab buu nebigu odhan jiray markuu nebigu ciidan u dirayo حافظ القرآن كون نبي وطلعه ودي بيجي ورجع على كقاضه مركز لبنان قبل النبوة بالرجل في أيام الجهاد عند المعركة وهو رجل كي قرآن بدن هيا كاهو الرئيسية والنبي قبل كرت كابي قبل النبي ورجع قرآن كعيار معه مركز دين تولى ليال نوشينا دين بالربا نوشينا قليلو وكلا صارني ما تولى نوكلا صاري يا لقوك كلا صارين دين المسجد كأت كوها يستبدأ لوضع عنيها inaad banaanka ula baxdid diinta masjidka taala waa diinte qofka masjidka markuu dhex joogo waa mutadayin akhlaaq wanaagsan baa ka muuqata khushuuc baa ka muuqata qur-aankii buu akhrisanayaa ilaahay buu baryayaa culumaduu dhegaysanaya dadka si fiican buu u salaamayaa masaajidka dhexdeedana inuu macsiyo ku dhaco uu macsiyo ku sameeyo ku dhiiran maayo waxuu leeyahay waa beydka ilaahay uu xishoonayaa حتى هدو أرك الله وقف المسجد كده هذا اللي يرى الدنيا كده شاكين وحورن ورياضة شو هذا ماشي هو مسجد مد مسجد كده مد كلا هذا الحكومة هدو أركو ساسو شو مسجد وين ماشي مساجد كسدة أن كل إحنا هاي الله وقبض غينا يسكن إلى علينا إنه ayaa loo baahan yahay diinada markaan u baxnayna saas ku ilaalino sadarteed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ahdigiisii ummadda sida uu masjidka dhexdeeda ugu tarbiyadeynayo ayuu banaanada joogaan nabigu ugu tarbiyadeynayay marka ikhwaani walaalayaal salaadan ku dadaalno salaadu waa meesha diinteena ma aragtaan qofka diintiisa laga garto weeyaan
يعني نقف مسلم بلا صلاة حافظه نقوليه نيانا لغو أركن وعهد بل والنقصان بل وخسارة إن أقل كأدوات كسوك على صلاة الصبحات كتمدي إن بدك كلاءات كتما بأيك أوفر دا والنقصان ويان لما نقف إسقبته النبي شيء وأودعي النبي قبلنا وأودعي نكنا وأودعي نكنا النبي قال هذين كي كعة يا صلاة الليل كأكعة يا حاسب سنة كعية هذي ديدنا بيير كل شيء إلهي هون حريصته ورسولك يري هو هذا المؤمن دا هذين صلاة الليل كأكعة إنك هذا كعيسى هذي وديدنا بيير كل بعدسا تعالى النبي وأودعي الله هون حريصته والنبي يري وأنا حريص والنبي علي يا فاطمة وبدك أوجع على أي النبي يقول تو صامر هذيك ورجلي وميانة تكنين ميانة تكنين ألا تصليان بركو النبي وهذا الكاكولة يا علي يا فاطمة قد وح أقل كوغا باد عطاء أفضل لقريه ما تعلو واحد ساقا كو أفرتان ما حيستان أرن مايو بل وحا النبي يقول أرن يا ما تكتين ميانة تكنين علي فاطمة ويمد وابري مركو واقو بريء حسن الحسين هاوي يا رسول الله واقع نو بريء تري أنكو حاليتو لنا بلا حرات ما عنين ساكنا أقل وحلا كريم ما يالان مركا أو انتو ديبو علي إيقا قادو حقا بيروه ولك عيكو تري وكذا بيبدي النبي صلى الله عليه وسلم حوارك علي بن أبي طالب ونن يهودي بيرتيسي عيل لها مركي بلدي وصوصروا بيها وشبابا حبت تمر مش غير لو حسابيه ولا سيي oo xoogaha timir intuu shaqeeyay xasan iyo xuseen halka intuu geed hoos fariisiyay timirtii biyaha isku cunayaan ciyaarayaan markaa buu nabigu u yimid oo xasan iyo xuseen buu nabigu la fariisto la ciyaaray markaa buu raacali ubadkayga cilaad inta ku kululaan ma adiga hoysida ma oran labadaadii wiil intood soo qaadatay oo u shaqeysood siisay timir iyo biyo ayaad inanteedii faadumana gaajo kaga timid miya war gabadha ii fur Soomaali hadii ka waran ما بنا حيسد بولايا عيال كذا تقانا إن تدين أنا دلكين ما هو النبي وصلا لا بد يبان أبدا ما دعنا بيجعل السلابي يتودك كلان ويا رسول الله يكي وحي ربانو شقيا ويعنانه فاضو ما نيرو شقيا يك هذه بكويدي مركاسو شقيا نبي يقول حسن بو قاضي حسين بو قاضي علينا حسن بو قاضي وحال الحسين نبي حب انت هو سوق أكاب الليل حسن النبي انت صروق أكاب الليل والله النبي أصحابتيسي ومديس وجع على مال الخطبة الجمعة النبي سوى خطبتين يبي الله بدو أرضي مسكت كسوق قلنا خطبة انتو جوجين والنبي هل قلت سو حنباري مركز صحابة النبي كويري لبدا مركان أركب مجوج كرم كويري إلهو كي جعل هذا جعلوا كي نعنا إلهو نعبد رسول كويري كواسا بلا عنتو كسحني كورما إنك أنا قوليه إن الراشم بكبو حصومه نعمدي ما انتين نقبلتي عيدتكم دب قاركود نعمدي إلهي وكفرنا يا صباح فقول عليهم بدك حافظ إن جوجت كسوك عدين صلاة كل دالة وأبدك صلاة كل تربية داية عمر بن الخطاب بأورنجري والأولاد دينا تضبط سنوه الرئيس الله عيارة تضبط كل حكتنا بأورنجري البي أو تعليمية وقعنت صوقبته تضبط كل حكتنا إلمها مارك تاني لا صاحبة كوب يلا باتن كاسنا علمه تربية صحة هدو لبدي سوى والد وكهله علمها سي علمتها بقى لبو نغنى يا نفتي سنة واحترى بدكي سي دينتي سنة واحترى وعلمها سنة نغنى يا بركة ولا ليال زمن كنا رنتي وزمن أدق ويان زمن أدق ويان خاصة ذاتك دان يرى حل أدق بكسور دعين مانتا لكن بدبادة وحن الرجال إنها مانتا الرجال قمناه دادال دينات بينو سعودا صحوة إسلامية ما أنت أدونك كسعوتها علماء دي معلمينتي دعادي جماعاتي اجتماعياتي مؤتمراتك محاضراتك بياناتك وعدك ميل والبا ما أنت ولا ولد بتشوقع بركة فرصة إن شاء الله هكفى هذه السنة وكو دينت إلهي برتئ ودد عليه يكون رغم الله ينقدقه إن شاء الله هذا فراخ مركز هشانا إلهي درتي أبوح وجماعة الراعي وددالك دينته علماء iyo maaragtay ducaada kaliya inaan ku koobine adigana diinta xilba ka saaran diintu ma diinta wadaadada un baa soo diinteeni barbal sheegade soo teeni ma soo inaan aakhira ku badbaadna mar rabno ha dhahada de
diinta markaa waa inaan wax gashano weeyaan caqligaaga cilmigaaga dhaqaalahaaga fikirkaaga muddo yar oo kooban bay asxaabtu diinta wax gashadeen ilaa qiyaamaha loo ducaynaya saxaabada rasuulka in yar Abu Hurayra dhowr sano ayuu nabiga la joogay dhowr sano ilaa qiyaamaha loo ducaynaya Sa'd ibn Mu'adh ninka la yidhi nabiga 6 sano la joogay maalintuu dhintana carshiga raxmaanka u gariiray 70,000 oo malag baa aaskiisa ka soo qayb gashay buu nabigu yiri waa muddo yar waxay nabiga la joogeen laakiin muddadaa yar maxay isticmaalaan ma taqaanaa xoogoogii oo dhan bay diinta wada gashadeen Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu adduunka 20 sano ku dhawaad buu nabiga ag joogay ka soo qaad 20 sano kama badnayn ama dhowr iyo 20 sanadood dheef buu gashaday diinta ilaa qiyaamaha manaabirta adduunka oo dhan baa looga ducaynaya war wax lagu tabco diinta ugu khayr badan khayr diintu wayna ku raacdaa baa la yidhi wayna kaa hadhaa laakiin haddaad adduunyo u tacabto keliya tacabka adduunyadu uu kaa hadhay laakiin aakhira waxba ku raaci mayso sida bahalkan la yidhahdo juclaan ma taqaanaan juclaan soomaalidu waxay tidhahdaa xaarwalwaal maxaa u taqaanaa inuu dooshaan juclaan oo luqa carabiya soo mahayn bahalkaasi baa la yidhi saxaradu ka dhiga kubad u kuusaa maantoo dhan uu soo riixi waxaan uu wato iyo godka uu ku wadaa sida ekaynba dooshaan saxaradii uu maantoo dhan uu kolba dhinac usoo walwaalayo xagga iyo xagga ula soo dhacayay godkiisii markuu la dul yimaado baa la yidhi godka afkiisa ayaa yar wuxuu watana intan uu leegyahay maantoo dhan buu haddana ku wareegi seed u gelisaa oo u geli waaye isagaa marka u dambaysa godku gali bale kolkuu daalo godkiisu iska gali quraanjo waxaa imanaysa markaa isla socoto isku xidhiidhsan wixii dhannaaba intay quraanjadu qaadato way kala furfurtaa baa la yidhi quraanjadu deedna midba in yar afka ku qaadana way la socon dadka adduunyada uu ka fikira way dhisayaan way dhaqayaan way badinayaan way dhisayaan halkan building halkan daaro halkan Nairobi halkan Muqdisho dhis maalinta uu dhintayna keligii intoo la qaado qabriga la gelin xoolihii intaa leegu dhisay ayaa qaadanaya ma taqaana quraanjo ciyaal hadday saalixiin noqdaan buu rajo leeyahay u duceeyaan oo waqfina u bixiyaan wax qaarkood maxkamadaha isku haystaan maxkamada anaga Djibouti dadkii wadanka dhistay malaha qof iyo laba ka nool wixii kale oo dhan intay wada dhinteen ayaa ubadkoogii maxkamada isla taagay inay kala bixi laayeen sagiina uu dhaadhacay marka haddaan adduun ku tacabno adduunku uu ka hariyo ugu dad kale uma qaadan laakiin diinta haddaad tacab gelisid wayna ku raaci wayna ka hari diintu saxaabta rasuulku diintu wayna raacday oo aakhirana waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa yaqiinsanahay ee quraanku uu sheegay inay janno wada galeen wayna ka hadhayo waanaka diinta manaaficsanayna ilaa qiyaamaha marka insha Allah dhahada inakoon inaan diinta markii firaaqan haysano maalkeena waqtigeena aan gelino soo diyaar manihin insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo amniga Allah inoo ziyaadiyo iimaanka Allah inoo adkeeyo dad badan oo walaalaheena xanuunsan baa jiree oo duca dalbanaya qof walba halku ka bukana caafimaad sariic Allah siiyo qaar muraaday leeyna muraadka uga macsilahna gacanta midig Allah ka siiyo qaar way bukaana ilaahay caafimaad ha siiyo qaar waa guurdoona gabdho wanaagsan iyo wiilal wanaagsan Allah ha siiyo qaar waa ubadoon weeyana durriyad wanaagsan Allah ha siiyo dalkeenni aan ka soo jeedana nabadiisa Allah inoo adkeeyo wixii diinteena iyo dalkeenna iyo dadkeena u danana talada Allah inoogu dhiibo wixii khayr inoo lahayna Allah ina dhaafiyo muslimiinta wixii khayr aanu lahayn Allah dhaafiyo wixii diinta iyo dadka iyo dalka u danana Allah inoo soo dedejiyo dhibaatadana Allah inaga qaado faqriga Allah inaga saaro ciriiriga Allah inaga saaro cabsidana Allah inaga saaro xanuunada la sheegayana Allah inaga ilaaliyo dadku hayana Allah ka qaado dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo sallallahu ala nabiyina muhammad ma'a sheekh bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo
dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka. duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. fadlan hore ogaad wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.